wasiirka ka tirsan xukuumadda Somaliland ayaa ka qayb galay furitaanka mashruuc ballaaran oo lagu horumarinayo kalluumaysatada Somaliland oo ay fulinayso hay'ad lagu magacaabo Fire Fishing isla markaana laga hirgeliyay qalabyo kala duwan oo lagu kaydiyo kalluunka baraf dhaliye iyo weli agabka kalluumaysatada iyo tababaro kala duwan oo la siin doono kalluumaysatada wasiirka wasaaradda kalluumaysiga Somaliland Cali Jaamac Faarax oo xariga ka jaray kulankaasi oo wehelinayo wasiirka wasaaradda qorsheynta Dr. Saad Cali Shire ayaa labada wasiirba si weyn u soo dhaweeyay mashruucaasi bulshadana ugu baaqay inay ka faa'iideystaan horey baraf dhaliyaal waa u yaaleen ilaa dhowr xaba ah ee berbera laakiin qaboojin waa tii koowaad oo la keeno sidii ay u burburtay neckfish u burburtay marka inaga siyaasadeen waxa weeye kalluumaysiga xaqiisa markaynu ka hadlayno inaynu horta marka hore soo celino kaabayaashii kalluumaysatadu ay ka duuli lahayd kalluunka la soo qabto lagu kaydin lahaa halkii kalluunka laga soo dejin lahaa barafkii loo heli lahaa markii hore mushkiladdu waxay yaa iibsada mushkiladdu imika waxa weeyaa soo saara taas baa waxay keentaa kal hore waxaynu soo iibsanay baan u malanaya 150 tan oo kalluun oo qasacadaysan keenin halkan ku baqteeya marka waxaynu mashruucan uga faa'iideysan karaa waddankan uga faa'iideyn karaa gaashimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga Maxamed Cabdullaahi Ilka Caase gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Ciidin xubno kale oo ka hadlaya dhamaantood soo dhaweeyay mashruucani waxaana ka warameen muhiimadda uu leeyahay xubno ku hadlaya afka kalluumaysatada Somaliland ayaa iyaguna soo dhaweeyay mashruucaasi ballaaran ee qaboojiyaha kaydinaya 30 tan ee kalluunka ee laga sameeyay magaalada Berbera iyo barnaamijyada kale ee horumarinta isugu jira mas'uuliyiin 2013 waxaanu ugu bixinay proof of concept kan wadano inay shaqeynayso in kale ayaan horta test garaynaynaa waa 4 container oo ah qaboojiyaal oo loogu talagalay kalluunka badda laga soo saaro in lagu qaboojiyo halkan waxaan maanta ku soo dhaweeynaa shirkadda la yiraahdo Somali Fair Fish oo maanta ahayd waqtigii ay saxada soo gashay kalluumaysiga qalabkaasoo ay kalluumaysatada u qaybin doonaan Somali Fire Fishing waxaana sidoo kale wasiirka iyo wasiirada waftigooda lagu casuumay hotel Mansour ee magaalada Berbera Cabdikariim Saciid Saalax Home Cable TV Berbera